Waxaan ahay 30 sano jir. Sheekadan waxay dhacday markii aan jiray 13 sano. Hooyaday waxay ahayd hooyo keli ah, waxayna ka shaqaynaysay 2 meel. Subaxii waxay ka shaqaynaysay baararka, habeenkiina meel dukaan ah oo alaabta lagu iibiyo. Sidaa darteed guriga ayaan keligeyga in badan joogaa, laakiin waxay ahayd mid iska caadi ah. Waxaan karsan jiray cunadeeda maalin walba, kadib waxaan aadi jiray iskuulka. Waxaan ahaa gabar wanaagsan oo mas'uul ah. Habeenada ka mid ah waxaan daawanayay TV-ga aniga oo cunaya ice cream. Qof ayaa soo garaacay albaabka. Waxaan ka yaabanayoon noqon karaa sida asxaabteyda aan weligooda soo bixin xilli dambe. Hadday ahaan lahayd hooyaday waxay adeegsan lahayd furaheeda. Kadib waan furay albaabka, waxaana arkay nin duq ah oo taagan albaabka, gacmihiisana jeebka ay ugu jiraan. Waxaan dhahay hallow, wuxuu ugu jawaabay hello yariise, waalidiintaada guriga ma joogaan? Waxaan dhahay maya, hooyaday guriga ma joogto hadda, waa inaad soo noqotaa berito. Markaasuu yidhi isagoo dhoola caddaynaya wejigiisa, adiga keligaa miyaa guriga jooga? Waxaan dhahay haa, aniga keligay. Markaasuu dhoola caddeeyey, wuxuu ugu jawaabay hay yariise, habeen wanaagsan, wax dhib ahna ha samaynin. Kadib wuu iska tegay oo albaabkii waan xidhay. Wuxuu ila muuqday qof la saaxiibi karo, laakiin mararka qaarna waxaan niyadda iska lahaa waa qof kaftan badan. Waxaa la soo garaacay albaabka mar labaad. Waxaan u kacay inaan ka furo albaabka, laakiin intaanan ka furin albaabka waxaan ku fikiray in silsiladda ku xidho. Silsiladdii ayaan albaabka ku xiray. Kadib waan furay albaabka. Albaabkii ayaa xoog loo soo riixay. Si kadis ah ayay u celisay silsiladda anigoo wax iska caawinaad ah aanan samaynin. Waxaan rabay inaan arko qofkuu yahay. Wuxuuba ahaa ninkii oo markii hore ii imaanayay oo mar labaad igu soo laabtay. Wuxuu idhahayay cod la yaab leh, weli keligaa maa jooga? Waxaan kaliya rabay inaan hubiyo inaad fiican tahay. Waxay u ekeed inuu rabay inuu guriga ugu soo galo, wuuna ku guuldaraystay. Markaan dareemay ayaa wuxuu iska dhigayay qof daacad ah, aanan rabin inuu soo galo guriga. Markaas kadib waxaan dhahay waan fiicanahay, wax dhib ahna iguma dhicin. Kadib albaabkii ayaan xirtay. Waqtigaas runtii maanan fahmin xaaladda iyo waxa igu dhici lahaa hadduu soo gali lahaa guriga aynan celin lahayn silsiladdaas. Waxaan dareemayay cabsi. Waxaan islahaa hooyo goormay imaan doontaa? Hal saac ayaa ka soo wareegatay. Weli waxaan ka fikirayay waxa dhacayay hawada. Kadib waxaan bilaabay inaan daawado filmaanta anigoo isku dayay inaan ku mashquuliyo maskaxdeyda. Markii aan maqlay qof dhahayay albaabka si dhaqsiga ah iga fur, waxaan rabaa inaan wax kuu sheego. Anigana aad baan u baqay. Tani waxay ahayd xaaladii igu cabsida badneed aan ebid arko. Ninkii wuxuu ka soo hadlayay albaabka meesha waraaqada laga soo galsho. Waan qeyliyey. Waxaan dhahay iska kaydaay. Ninkii wuu xiray meesha waraaqada ka soo gasho. Kadib wuxuu bilaabay inuu soo garaaco albaabka asigoo dhahaya iga fur gabar yahay qaylada badan. Kadib wuxuu bilaabay inuu ii hanjabo, haddaad iga fur weydo albaabka waan kugu soo jibin doonaa. Kadib wuxuu ogaaday inaan furi doonin albaabka, wuuna iska tegay. Kadib waxaa albaabkii soo furay hooyadeeda. Waan ooyey.
waxaan u sheegay wax walba oo igu dhacay, iyaduna waxay wacday booliska. Booliskii ayaan u sheegay, laakiin waa ay waayeen ninkii. Kadib waxaan ku fikirayay waxa igu dhici lahaa hadduu ninkaas silsiladda albaabka aynan celin lahayn. Kadib waan iska seexday anigoo nacaya inaan ku fikiro waxa dhici lahaa waqtigaas.